السلام عليكم ورحمة الله. مقعي عبد الرحمن مختار. أنا مقعد عيل جلال مختاري. waxaan content creator sidoo kalena sawir qaade ama muuqaal duube taasoo ka shaqeynay 6 sano u dambeeyay sidoo kalena waxaan ahay macalinka ku dhigi doona insha Allah course-kan Adobe Lightroom waa barnaamij caan ku ah sawirada edit gareyntooda photographer professional oo si fiican wax sawir yaqaana laakiin sawiradan si fiican u edit gareyn karin run ahaantii shaqadiisa waa wax kama jiraan haddaba dad u baahan inaad noqoto professional photographer sidoo kalena khabiir ku noqoto edit gareynta sawirada ama photo editing waxaan ku diyaariyay course aad ku baranayso barnaamijka loogu isticmaalka badaya dhanka photo editing oo loo yaqaan Adobe Lightroom haddaba intaan course-kan ku guda jirno waxaan qaadan doonaa 9 chapter tusaalahan chapter-ka koowaad kale waxaan ku qaadan doonaa introduction to Adobe Lightroom oo kamid yihiin muxuu yahay Adobe Lightroom sidoo kale versions-ka u kala baxan Lightroom-ku iyo waliba sida loo soo dago adigoo isticmaalaya computer Windows iyo computer Mac ah chapter 2 waxaan ku qaadan doonaa sida loo soo import gareeyo sawirada ay kamid yihiin file format-ka loogu isticmaalka badan yahay iyo mid walba shaqadu qabsay waxa loogu tala galay iyo sidoo kalena isticmaalka folderska iyo collectionska chapter 3 waxaan ku qaadan doonaa development tool oo ah qaybta ugu muhiimsan marka la joogo Adobe Lightroom-ka oo qaybta shaqada u badan laga qaban doono waxaana kamid ah inaan si guud isku eegi doono development tool wuxuu yahay iyo sida loo isticmaalo iyo wuxuu qabto waxaana ku xigay histogram wuxuu yahay muxuu qabtaa sida loo isticmaalaa isagana kaasi ku baran doonaa chapter 4 waxaan ku baran doonaa asaasiyaadka editing toolska waxyaabaha loo isticmaalo ee asaasiyaadka ku ah photo editing walibana sida crop inaad sawirka ku sameyso iyo straighten aad sawirkii aad toosiso hadduu qalooc ku jiro iyo sidoo kale white balance-ga inaad saxdo temperature-ka iyo tint-ka tone-ka sidoo kale exposure-ka contrast-ka highlights-ka shadows-ka whites-ka blacks-ka intaba inaad iyaguna sidoo kale aad saxdo presence-ga texture-ka clarity-ga details-ka vibrance saturation intaba iyagana sidoo kale sida loo saxo loona isticmaalo sida ugu saxsan chapter 5 waxaan ku qaadan doonaa waa very important part oo ah color grading and HSL panel waa qaybta aan ku baran doono in wax laga bedelo ama adjustment lagu sameeyo individual colors color walba si gaar ah ayaynu edit gareyn doonaa hadday noqoto in colorka laftirkiisa aynu wax ka bedelno saturationkiisa aynu wax ka bedelno iyo iftiinkiisa ama luminescence aynu wax ka bedelno iyana si guud u isticmaalno color grading panel kaasoo ka kooban midtones highlights iyo shadows chapter 6 waxaan ku qaadan doonaa detail panel waana sida sawirada sharpen looga dhigo how to sharpen photos iyo sidoo kalena sawirada haddii ay digital noise ay leeyihiin looga saaro iyo waliba sawir haddii loogu keeno lens distortion leh sida looga saaro isagana iyo sida loo hagaajiyo chapter 7 waxaan ka qaadan doonaa sida loo isticmaalo maskiska isaguna run ahaantii waa chapter aad u muhiim ah waxaana kamid ah brush linear gradients iyo radial gradients iyo sidoo kale sida subject-ga loo select gareeyo kligi waxna looga bedelo iyo sidoo kale waliba sky ama cirka inaad inta kliga aad select gareyso aad wax ka bedesho chapter 7 waxaan markaan ku guulin waxaan kula wadaagi doonaa assets oo sawiradaas oo ah qaar anagu si high quality aan soo qaaday kuwaas oo aan ku soo qaaday row waliba chapter 8 waxaan ku qaadan doonaa sida loo isticmaalo presets-ka sida loo sameeyo presets ama filters kuwa ku dhex jira ee default ama automatic ku dhex jira Adobe Lightroom-ka sida iyagan loo isticmaalo iyo waliba sida qaar online-ka loogala soo dago looguna soo import gareeyo Adobe Lightroom-ka maadaama presets-ku ama filters-ku ay waqti badan ay qofka u save gareeyaan run ahaantii waa kuwa ii saamaxay inaan sawiro dhowr boqol ah aan minutes aan ku edit gareeyo chapter 9 u dambeeya waxaan ku qaadan doonaa sida sawiro loo export gareeyo sida setting-ka ugu saxsan ee lagu export gareeyo file size-ka file format-ka sidoo kale watermarking-ka marka sawirka export gareynayso inaad loogada saarato ama magacaad ku qorato iyo ugu dambeyntii file name and save options waxaan rajaynayaa course-kan si fiican uga faa'iideysato kuna shaqeysato iyo waliba run ahaantii aad noqoto qof loo daba fadhiisto good luck